arrinta lagu kacay waa arrin aad u foolxun oo xambaarsan saddex waxyaabood hanjabaad aflagaado iyo high treason waxa la yiraahdo dafiraad jiritaan xildhibaan la yidhi xildhibaano ma jirtid jamhuuriyadda Soomaaliland cadowgeeda tahay markii halka taagan tahay waa xaalad adag waxa loo dul qaadan karana ma jananka booliska waxaan leeyahay xaq u leeyahay xildhibaan Maxamed Abiib inaad ku tiraahdo xafiiska mahooyada baale waa arrin foolxun arrintan waa arrin dhammaan xildhibaanada u taala waa arrintii labaad ee lagu la kaco jananka waxaan leeyahay arrintan Abiibna waxaad ku dartay arrintii xildhibaan Guruuje oo ahaa xildhibaankaagii oo aad tiri suuqa budha lagu la dhaco xildhibaan walbana arrintan waa xildhibaan way u taala waxaan soo jeedinayaa ka gol ahaan in arrintan gol ahaan looga jawaabo iyadoo oo la adeegsanayo sifo sharciga General Dabagale wuxuu yiri waa cadowga Soomaaliland buu xildhibaan Maxamed Abiib xildhibaan Maxamed Abiib wuxuu ka soo jeedaa gobolka Awdal taliya waxaan ku leeyahay adigu waxa taqaanaa sida qaranka loo baabiyo ee xukuumad jirta loo dumiyo waxa weeyi annagu haddaanu nahay reer Awdal annaga kaaga lix jecel badan jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland annaga dhisnay markaad xukuumadii riday annaga sheekh kugu soo gurmanay annaga berbere kugu soo gurmanay annaga Hargeysa kugu soo gurmanay annaga ku keenay shirka Boorama in xukuumadda Soomaaliland lagu dhiso annaga kaaga lix jecel badan waana ayaan darayna maanta tiraa xildhibaanada gobolka Awdal ka soo jeeda waa cadowga Soomaaliland adaa cadowga Soomaaliland uga dhow xildhibaanada gobolka Awdal ka soo baxa Maxamed Abiibna uma jawaabina gobolka Awdal oo dhan ayaad ku gaftay oo aad ku tiri waa cadowga jamhuuriyadda Soomaaliland waxa yimiday qolo sirdoona oo ka socota CID dalka Mareykanka oo ka dimday Djibouti waxay wareysteen Cabdiraxmaan Ciro waxay wareysteen Faysal waxay wareysteen gudoomiyaha xisbiga oo cid Faysal Cali Waraabe waxa laga wareysanayay dadka xilalka qaabanaya madaxweynayaasha ku guuleysanaya waxbarashadooda iyo backgroundka ay leeyihiin waana arrin standard madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa laga qaaday wareysi dheer oo ka kooban 100 su'aalood su'aalaha laga qaaday madaxweynaha Muuse Biixi waxa ku jiray yaad u taqaanaa cadowga Soomaaliland wuxuu yiri madaxweynaha Muuse Biixi cadowga Soomaaliland waxaan u aqaanaa beelaha darafiyada iyo beesha dhexe lafteeda marka arrintan General Dabagale uu ku hadlay waa arrin laga mideysay xukuumadda kulmiye sababtoo ah arrimaha gobolka Awdal lagu la kacayo dadka la raafay Hargeysa lagu xukumayo dadka ruqi laga soo afduubayo dadka beerahooda la wareegayo waa arrin laga mideysan yahay arrintiina waxa khashifay General Dabagale oo horena u sheegay oo yiri iyadoo oo olole lagu jiro xildhibaanadii gobolka Awdal ka soo baxay kulmiye iyadoo madaxtooyada la fadhiyo oo Muuse Biixi Cabdi fadhiyo oo wasiiradii gobolka Awdal fadhiyaan oo xildhibaanadii xisbiga kulmiye laga soo doortay fadhiyaan xilligii surgudoonka la isku haystay ayuu wuxuu yiri reer Awdal waa kabashaaglihiina weeraray waxa laga yaabaa dhalinyarada imika inay kabashaagle garaneen adeer kabashaagle waa reer Awdal baa loo yaqaan qolo walbana naaris beeleeda General Dabagale waa badheer uu ugu tala galay Soomaaliland sidan lagu wada yeelan maayo Soomaaliland waa la xisaabtamaya gobolka Awdalna waa la xisaabtamaya